dhaqdhaqaaqa iibsiga xayawaanka diinka ayaa muddooyinkii dambe ahaa mid si weyn looga dareemay bulshada dhexdeeda. xayawaankan oo Ilaahay ku uumay guud ahaanba geyga Soomaalidu degto ayaa waxaa dhawaan baraha bulshada la isku dhaxmaray in la siisanayo lacag badan, waxaana la sheegay in dhammaanba dadweynuhu ay u dhaqaaqeen siday u soo qabsan lahaayeen una soo gaarsan lahaayeen xayawaankaasi. ha yeeshee weli ma jirto cid si cad uga faa'iiday iibsiga xayawaanka diinka, waxaana jira dhacdooyin badan oo ka dhacay ka ugaarsiga xayawaankaasi. sida uu noo xaqiijiyay aabba dhalay wiil dhalinyaro ah oo ku nool gobolka Sool oo soo qabsaday xayawaankaasi ayaa la sheegay inuu ku xanuunsaday, kaasoo loo soo qaaday isbitaal ku yaala magaalada Laascaanood si loogu dabiibo. soo fuurayna markaa baa laga siisanaya mobile bay saareen ateenada ka tagtay dabad way qaateen, haday qaateenna habeenkii markay gurigu joogay baa waxa ka sii daayay. anigu markaa guriga ma joogin, wiil aan adeer u ahay. wiilkii laba casho markuu joogay baa waxa lug iyo gacan baa sidii barariso nabar ka soo fuuray. hadduu ka soo fuurayna markii dambe waa wixii way dilaaceen, kaarkii markuu ay ka dilaaceen wuu yar seexday. hadduu yar seexday gacantii baa itaal beeshad oo haddada baqtiya. habeenkii wuu iska shahaadanaya, wuu iska wareegaya, waa shaydaanku naaraya, waa gariiraya. gaari baan xudun ka soo kaxaysto, hadda waa soo qaaday. waxaan rabaa inaan cilaajkan geeyay maxkamadana warqad baan saaka uga goosanaya cilaajka inaan geeyo. nin bukaa socda weeye. dadka waxaanu ku wacyigelinaynaa bahalka diinka ah oo inaan loo dhowaan oo xayawaanka noolaha ah. waxaanu ka wacyigelinaa bahalka qolofta Ilaahay u sameeyay oo kaga badbaadiyay bahalaha in umadu sida wiilka ayay ku halaagsamay. waxa kale oo la ii sheegay haddaan dadkii ay ninkan arkeen, dad badan baan waraystay, waxay igu yiraahdeen nin baa tuurta ku soo qaatay, markuu tuurta ku sitay buu surkii soo kala bixiyo surku ku dhigay. ninkii 3 casho noolaa wuu dhintay. dhankiisana gudoomiyaha maxkamadda degmada Laascaanood ayaa xaqiijiyay inay jiraan dhacdooyin badan oo ku gaadaaman iibsiga ama ugaarsiga xayawaankaasi oo uu ka mid yahay wiilkan ku xanuunsaday soo qabsashada xayawaanka diinka. ayaa saaka waxaa noo keenay aabihiis oo doonaya inuu cilaaj geeyo oo maxkamadda ka helo warqad cilaaj u geeyo. goortii aan wareysanay ninka bukaan socodka sababta xanuunka hayana waxaa naloo sheegay inuu diin soo qabsaday, dabadna diinkii markuu habeenkii guriga geeyay in dhibaato ka soo gaadhay oo lugu iyo gacan qalashay oo nabar ka soo baxay, kabacdina xiiskiisii isbedelay. sidaana aabihii kaga sii daayay ilaa iminkana quraan saar ku socdo. dhibaatada soo gaadhay ay tahay ciqubadii ka dhalatay diinka xayawaanka Ilaahay dhulka ku beeray cidii soo qabsata aan ku maqalno waxaan diyaar u nahay inaanu talaabo ka qaadno. xayawaanka diinka ayaa wasaaradda deegaanka iyo sidoo kale maxkamadda sare ee Soomaaliland ay ka soo saareen go'aamo ganaax iyo xadhig isugu jira oo lagu fulinayo cidda ugaarsata xayawaankaasi. Cabdiraxmaan Cali Ducaale, Home Cable TV, Laascaanood.